marka xisbigan waxa weeyaan waxaad arkaysaa 15 sano uu jirsaday waa sanad guuradiisii 15aad 15 sano horumarkii uu muxuu ahaa dowlad deegaankan Soomaalida Itoobiya ay gaadhay waxaa lagu mahadinayaa xisbigan asaaskiisa iyo horumarintiisa uu ummadiisa muxuu ahaa horumariyay xag dowladeed xag muxuu ahaa dhinac walba oo horumarku uu yahayba waxaad arkaysaan dowladda isagaa dhisa dowladda hadda muxuu ahaa madaxweynaha cabdi maxamed cumar uu madaxda u yahay xisbiga yaa asaasay ilaahay mahana ka siiya isaguna aad buu muxuu ahaa horumar ugu sameeyey isagoo xisbigiisa iyo muxuu ahaa ummadiisa hogaaminaya marka waxaan leenahay oo aan maanta u dabaaldegaynaa xisbigaas jiritaankiisa iyo taageeradiisa isaga iyo dowladda muxuu ahaa uu dhalay mise isagaa dowladda isagaa dhalay sooma mise dowladdaa dhashay isagaa dowladda dhalay soomadan marka dowladdaas uu dhalay xisbigu iyo xisbiga laftigiisa asaaskii ahaa dowladda waxaan ku mahadinaynaa horumarka ay sameeyeen السلام عليكم magacayga waxa la yiraahdaa injineer Cabdiraxmaan Abubakar Sheekh Ali Haydar waxaan ka soo jeedaa gobolka Abdeer magaalada Raaso xaqiiqdii maanta waxaan rabaa inaan dhammaan horta waad salaamantihiin marti sharafta qiimaha leh ee isugu timid shirkan oo isugu jirta dhalinyarta odayaashii iyo dumarkiiba waxaan rabaa inaan mahad u celiyo qabanqaabiyaasha shirkan oo xaqiiqdii shaqo badan soo qabtay it takes a lot of effort inaad si kala kala soo qabtay aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa inaan idin wax yar ka taabto sababta horta aan meesha isugu nimid waxa weeyaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed oo hawl badan iyo horumar badan soo gaarsiiyay oo aan ku faraxsanahay sababtaas in horta maanta u nimid marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii aasaasay dadkii u soo horay waqtigooda dadkii shaqo badan soo geliyo waqti badan baa ka galay marka waxaan rabaa dadkaas horta inaan u mahad celiyo ama ha joogaan ama ha dhinteen kuwii dhinteen ilaahay u naxariisto kuwa noolna waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay aasaaskii kuwa hadda maaragtay shaqadoodana aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan hal point mention gareeyo waxaan aad iyo aad rabaa inaan ugu mahad celiyo howlwadeennada DDS gaar ahaan madaxweynaha cabdi maxamed cumar kasoo hooyay nabadgelyada gobolka Afdeer gaar ahaan xagga markaan fiiriyo nabadgelyada soo afjarkii colaadihii ka dhacay meeshaas marka dhammaan waxaa rabaa أنا خلك يسوي جبيني وحلا هاي. ويلش قبلها متعلمين تدمانتين. هذا يا رب فرحنا هاي وحين رنتي إيتا هاي قيمة هذه أدوين. أنا كسر قيمة حسبية حفلة الوصف ما يعني حسبية دولة دجاج كشعب كصومالي إثيوبيا. حفلة نوعه سنقول لي شيء طبعا أكبر مفرحنا أنا عارف طبعا. waxaan markale sharafiya inaan ka imid dhulkayga hooyo aanan ahay qof og inay leedahay dhul ay ku faanto runtiina markaan xaqiiqda idin sheego reer Minnesota especially reer Minneapolis madaxweyne ku-xigeenayaasha wasiirada dhammaan aad baa laydin jeceliyaa runtii waxaan wacdarihii aan ka muujinay ma garanaysaaye
bankii meesha aan taagnayn maalintii hawshii aan qabanay weeyaan reer Australia waxay ahaan jirtay number 1 horta hambaligaasaan idinka sidaa dowladeennii Australia waxay ahaan jirtay number 1 ayaana shir galay oo madaxweyne ku-xigeenka Cabdullaahi uu nala shiriyay oo laga hadlayay dadka qodbo joogta يا واحد أنا بستري لين صوت على قاعة تبى كذا لا كسر عشان مرة واحد يقول أنا يا هاي ما أنا كذا مرة بساسة ما أرتاي ودنك مرة بعدينكو ما أرتاي فرح سنة هاي أنا دي سيدا مسج كاس واحد الكرة ما كره من صوت إسبيشال من يعرف الأمور كاستديو ومرة بعصي وتاجل إنه متقنا هؤلاء دياس وحكي قبطهم مرة كذا صوت ما هم علنا يا runtii caawa halkan waxaan isugu nimid inaan u dabaaltegno sanad guuladii 15aad xisbiga dowladda shacabka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya waa xisbigiisii runtiina waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ah oo aanu haddii aanu ka hadlayno wixii uu gudaha ka qabtay runtii dad badan baa ka hadlay oo qosturku ka mid yahay oo noo sharxay waxyaabihii uu qabtay laakiin waxa ugu weyn uu qabtay waxaa ka mid ah resultiga caawa aan fadhino xisbiga ayaa iska lahaa xisbiga maanta la lahayo haddii uusan waqti gelinin in qurbo joogta uu ka dhaadhiciyo horumarka waddanka jiro iyo mataqaanaa nabadgelyada muhiimadda ay leedahay maanta meeshan maanu iskugu imaanin marka waxaan ugu mahadcelinaynaa xisbiga isu keenitaanka iyo nabadda ay ka qayb galeen runtiina waan u hambalyeelayaa dhammaan hogaamiyaasha xisbiga madaxweynaha dowladdeegaanka dhammaan dowladda iyo mataqaanaa wasiiradeeda dadaalka dheer ay galeen oo maanta mataqaanaa ay heer kusoo gaarsiiyeen dowladdeegaanka haddana ay weli wadaan annagana waxa aan u ballan qaadaynaa oo mar walba la garab taaganahay in aan sii kordhino dadaalkooda motivationna aan siino runtii way maqlayseen gabadhii waddanka imaatay dad badan baa iska aaminsan reality-ga ee waddanka ka jira waxyaalaha isbeddelka dhacay indhaha mataqaanaa ka dadbanayo awalkama badinayo marka waxaan aad iyo aad u faraxsanahay aqalkayga hooye baa sheegeen waxyaalaha aan soo maray mar waxaa jirta aan 20 qof anu meelna suulid oo dadka dhan ay gagaban jireen marka waxaan u mahadcelinayaa oo aan salaamayaa halka ka salaamayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Cumar waxaan u hambalyeeynaa xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya dhammaan shacabka Soomaalida Itoobiya dowladda Soomaalida Itoobiya waxaan soo dhaweynayaa waxaan yar u mahadcelinayaa magaalada Minnesota oo ah magaalo aan aad iyo aad yani howlkar ah oo maxay dadkooda iyo dadkooda inay maartay iyo dadkooda yimaadaba soo marfuuxya waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ururka sadiyo odayaasha dhalinyarada haweenka kulli dadkooda martida halkan isugu timid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xisbiga dimuqraadiga ee Soomaalida Itoobiya waxaan soo dhaweynayaa calanka Soomaalida Itoobiya waxaan soo dhaweynayaa hash ku sawiran hash arafteeda inaga iskale ku sawiran raggii u soo fakeray baan aad iyo aad ugu hambalyeynaya inta haddaan ka gudbo kolay hadalka ma sii badinayo dad badan baa maarta hadlahaya marka aad iyo aad baa maarta u salaamaytihiin sidaa ayay yihiin ترسلين السوق عاور وحنا كسرنا من قف كسرنا تقول لي سير لما سكسر تبي أنا كسرنا من واحد بلينا وحنا كنا هم بلينا مرحين هلا دير بلين كسمالية عبد محمد عمر بنتي الحمد هاي قف قبل الآن وكتر لجسي أدوك بتقول ولي حتى هتقول بنتي تشوريها ويحنا كنتي متعرفة يا الأركيدورة عاوة مثلا كل صوت لي هالكلام صوت لي واحد يفرح قليل بعدين شوية واحد يفرح قليل متى أنت ما أنت ماشي ولا غير صوت وحكي خاصي بديه
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed wuxuu abuuray wax la abuuro oo la tababaro waxa ugu wanaagsan dad dhalinyaro ah oo soo kacaya oo birta dhigaya generation badan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan filayaa inay ku faraxsan yihiin shaqada oo qabto halkaa haddaan ugu gudbo waxaan u gudbayaa xoolaha inaan ka hadlo dadka magaalada degan Minnesota ama Minneapolis baa laga hadlay inay yihiin magaalada Minneapolis aynu ugu dabaaldegaynay sanadkii shantanaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya afkan Ingiriisiga lagu yiraahdo ESPDP waxaan leeyahay hambalyo xisbiga hambalyada kasabkoy waxaan rabaa inaan mahadcelin u celiyo dadkii waqtiga badan iyo dadaalka badan geliyey inay xafladan quruxda badan aragto inuu xoog iyo kharash iyo dadaalka lagu ku baxay quruxdeeda ina soo qabaqaabiyey warmaasintii maqlay waxaan kala mahad celinayaa mar walba dhiirinaanta balaaqada iyo dadaalka oo saaxiibkii badri geliyo isku dibadidka iyo qabanqaadada sirka mucaaradada waxaan leeyahay walaalayaal waad la qudaysay madax xaliil iyo hadalkii quruxda badnaa ee kaga hadlay taariikhda iyo ujeedooyinka uu xisbiga uu ka leeyahay horumarinta iyo nabadgelyada iyo qaabka geedi socodka maamulka hadda jira iyo Soomaalida Itoobiya dhammaanteedba waxaan rabaa in lagu qabado kaas aan dul istaago kadibna aan hadalka soo gabagabeeyo waxaan leeyahay xisbiga marka uu xisbi leeyahay axzaab badan oo uu kaga guulaystay inuu helo kalsoonida shacabka markaa waxaa aasaasay oo sameeyey oo kalsoonida siiyey shacabka Soomaalida Itoobiya iyagoo u baahnay mucaarado xisno talaalada ugu horeysay xisbi markuu kalsooni shacabkiisa uu ka horeeyo sameeyo waa in uu sameeyo platform ay ugu horeyso inuu sameeyo dowlad waxqabad oo gaarsiinta karta himilooyinka ugu badan qaaday shacabka waxaan middaa ka leeyahay 15 sano xisbigu soo maray tadawurku soo maray uu isku dayay waxaan salka gaaro waxaa la soo maray dowlado badan oo aan gaarin intisayaasha loogu talagalay oo gaaris noqday waxaa sharafii markayna midnimo yaraado in sida hadda aynu dhammaanteen carabku ay dhafanin inay dowladdan hadda joogta ay qabatay midii xisbigu ka gaaray guushii ugu horeysay ee ilaalintaas qolka ama markii aan halkaa kaga baxay waxaan dhihi lahaa waxaan jeclaan lahaa inaynu carabku iyo dadaalka iyo ducadaba aynu dadaalo inaynu taariikh samayno oo ay dowladdani noqoto waxqabadkeedu midtaa ka gala oo dhammaysta markii ugu horeysay taariikhdii Soomaalida deegaanka Soomaalida Itoobiya 5 sano la soo bartay waxaan rajeynayaa inay xooggan muujinayaan midnimada muujinayaan oo miisaan uga dhigaysa maalinta xisbigu madaxweynuhu sii sameeyay oo ay sameeyaan maalin walba nidaam aaminsanaya inay kalsooni badan ay ka qabaan dadaalkooda iyo kartidooda inay gaarsiin doonaan himilooyinka una badan qaadeen waxaan kusoo noqonayaa qodob domestiga oo inaga ugu saabsan reermana soo dhiga ku joogta kaa waxaa ugu horeeya dowladdu markay rabto inay dadkeena waxay rabto wada qabato keligii ma qaban karto waa inay heshaa baalada ugu duusho baalasha waxaa u noqonaya baayac mushtariga iyo NGO-yada oo ah hay'adaha aan diiniga waxaan leeyahay marka hore xilka dadkii Soomaalida macallinka ah gobolka looga dhamaaday oo ugu horeysa xisbigan Soomaalida Itoobiya Platform oo hogaaminaysa Itoobiya iyo waxaan leeyahay xilkii tallaabo lagu horeynayo inaad markaa si badan oo kala samaysan gabdhaha waxay qabteen hadday guri gelin karaan iyo hadday weysan karaan ku qaadan kartaan casho waxaan aaminsanahay inay tahay tallaabo faa'iideysan iyo halkan u soo dhaweeyo alxamdulilah waxaan dhihi lahaa meesha lagu socono ma aynan nin dowladkeena ka ahaan jiray coach maristaasi vince lombardi la dhihi jiray wuxuu soo wareysay gelin yara buureeda
ونكر جاهنا ويجيبه هذا تقنى فعلا لما كان بيحقق هذا الجيل بعد هذا الجيل ويقول لك أنا هدي كفار بين المركب كأكران والكران ماشي أقول لك أنا كنت كذا أكران الجلسون والموضوع دون الأكبر أنت دون طلعوا يعني أنا مسؤول كذا كذا أنا طلع هذا وحنا نقول له يا أخي أنا تريد بالبيع من كان في الدنيا إذا استراتيجي تأكيد ولا استراتيجي يكون ولا استراتيجية وكل وتشوفي عن كل المدرسة ولا المشاهد كله بدرس فيها هكذا كل ما يريد تقرأ الكفار وعن كل ما يتساوي تعال مرة أول صورة من هذه الموضوع يعني ما نقولنا ندينه بعنا لكن حنشعر علينا بالحقيقة في سوقنا هنا المكاس كشرفنا مطلوب هرسوها مبلينيا حسبك ديمقراطية الشعب الصومالية وشنيتون سنة oo meel kasta caawa laga dabaaldagayo anagoo reer Minnesota aan dabaaldegano xafladan weyn aan u sameynayno xagga deegaankana iyadoo laba bari ka hor uu dabaaldegeenu ugu weynaa ka dhacay waxaan ka aad ugu faraxsanahay horumarka uu xisbiga soo hoyay iyo guulaha uu soo hayay oo ah xagga waxbarashada caafimaadka nabadgelyada anigoo ka kala hadlaya xagga qurbo joogta waxa aan ku boorinayaa in dadka qurbo joogta markay wadanka ku noqdaan marka ugu horeyso horta wadanka dadka ku noqdaan ku noqoto first or so in Indonesia laakiin marka soo noqoto second time waa inaad goals iyo mission wadataa oo aan wax qabanaa qof kasto awoodiisa inuu wuxuu qaban karo uu qabto oo wadanka ku celiya oo wixii aan ka faa'iideysanay wadamada aan joogno aan ku celinaa inaan دعنا رجال لهم 17 نقول أميس أدخل على سأو ذاتك وحو قرطة أما قبلنا كسر تيرو أما تلوين كا أميس أصلا دياسبرين أو تطلع وحو قرطة انتظر شيء